السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حكمة beeralayda boqor baa u baxay tamashlayn iyo qaadasho wuxuuna arkay nin beer falay heesna qaadaya aadna u faraxsan wuuna la yaabay wuxuuna ku yiri waxa ka muuqda farxad iyo himilo fiican beerta maada iska leh wuxuuna ku jawaabay maya kiraayan ku shaqeeyaa wuxuuna weydiiyay meeqaayad ku qaadataa dhibkani waxaan ku shaqeeyaa 4 shilin maalin walba boqorkiina wuxuu weydiiyay ma kugu filan tahay 4 shilin ها way igu filan tahay shilin anaa masruufta shilin deyn baan ku bixiyaa shilin deyn baan ku sii bixiyaa shilin ilaahay dartii baan u bixiyaa boqorkii wuxuu yiri waa alxiraale aan fahmin ay ii jilay waan ku sharxiya dhageyso shilinka aan masruufta aniga iyo xaaskiga ayaa ku nool midka aan deynta ku bixiyana waxaan siiyaa labadeeda waalid ay soo korigay iguna soo daalay anigoo yar haddana waan duqoobay shilinka aan hormarsadana waa midka aan ku masruufto ilmahayga dharkooda cuntadooda waxbarashadooda si markay weynaadaan igu socodiyaan lacagtaasi shilinka aan sadaqaysana waa midka aan siiyo laba gabdhood oo walaalaha oo xanuunsan aadna u jiran si aan ugu xaqi ilaahay boqorkii aad buu u farxay xikmadda beeralayda odayga wuxuuna siiyay kish lacaga wuxuuna ka bartay qiimaha qanacada jacaylka shaqada xisaabtanka saxda iyo wixii la mid ah haddaba qofka caqliga ah waxaa laga rabaa inuu isweydiiyo su'aalahani shaqadaada ma jeceshahay ma ku faraxsan tahay rabbigii ku siiyey ma ugu mahadcelisaa sadaqo ma ka bixisaa si alle subxaanahu wa tacaala kugu xifdiyo risqigaaga dadkii ku soo kaalmeeyey heerkan ku soo gaarsiiyey waalidka macallimiintaada iyo saaxiibadaada iyo wixii la midka ah ma xasuustaa oo ma u mahadcelisaa mise waad ilowday ubadkaada iyo inta aad mas'uulka ka tahay wax xalaal ah oo hubto ma siisaa is waxbaad isku qastaa xaaraanta iyo xalaasha waxaana la hubaa qofkii su'aalahan si sax ugu jawaaba inuu siyaasanayo xisilooni degnaan raaxo qalbi garaawiiq si fiican iyo wixii la mid ah cudurrada dadka halaagan waxaa horgal u ah inaan ilowno waxaan haysano ee faraha badan kuna dadaalno aadna ugu mashquulno raadinta waxay naga maqan oo kaliya taasna waxaa ka dhasha cudurradani fikirka xun damaca badan xadgudubka xatooyada iyo boobka iyo bililqaysiga iyo wixii la midka ah allaha naga koriyo kuwaasi oo dhan waa kuwo bulshooyinka halaaga dadkuna isaga hor yimaadaan isku dhacaan isuna dilaan isku xadaan oo hadduu qof walba ku qanci lahaa ku sabri lahaa waxa uu rabbi siiyey kuna mahadcelin lahaa mar waliba waxaa yaraan lahaa aafooyinka boobka khayaanada dhaca xatooyada iyo wixii la midka ah haddaba qof waliba waxaa lagaa doonayaa inaad ku qanacdo waxaad haysato hana ka fikirin waxaadan haysan waxaad haysato waxay ku timid nimcada alle waxaadan haysan oo kaa maqanna waxay ku timid xikmadda alle saaxiibayaal maanta muuqaalkiina halka ayuu ka egyahay intaynu ku kulmi doono tan iyo muuqaalkiina haga fi amaanillaah asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh